maleeshiyada qawaariijta al-shabaab intay gacanta ku hayeen degmada xarar dheere ee koonfurta gobolka mudug waxyaabaha ay la yaab kale oo ay kaga tageen waxa ka mid ahaa oo dadka Soomaaliyeed iyo degmaduba ay ka dhaxleen in magaaladan ay ku beereen geedka loo yaqaan cali garoobka ama geed jinniga geedkaas oo saameyn ba'an ku yeesha dadka iyo dunyada isticmaalaha meelaha uu ka baxo argagixisadu ayagoo ka duulayay in geedka kan ay ku dhumaaleystaan oo ay kaga dhumaaleystaan duqeymaha iyo sidoo kale weerarada ay fulinayaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo saaxiibadooda waxay magaaladan ku beereen geedka geed jinniga loo yaqaan dadka Soomaaliyeed waxay ku xukumeen in qofkii geed cali garooba jara ama geed jinniga sida loo yaqaan qofkii gooya uu ka dhigan yahay asagoo dilay qof ka tirsan qawaariijta gobolka dhacay al-shabaab xildhibaan Bashiir Sheekh Axmed oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed u sheegay in intii argagixisadu haysteen degmada xarar dheere ee koonfurta gobolka Mudug ay duuleysi iyo mugdi ku hayeen muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool degmadan iyo deegaanada hoos yimaada sidaas oo kale ay ku fuli jireen xukunno baalmarsan shariicada islaamka waxay soo sameeyeen buugaag ay diinta islaamka ku bedeleen oo gabi ahaanba diinta bismudiin hadmudiin magaca diin la sheegto laguna diimiyo magaca diimeed inay sheegtaan ayna ku dimiyaan magaca diinta taasi waxay ku caday maanta buugaagta aan ka helnay meeshan oo ay kamid yihiin kuwa noocaan xukuumada beenta ah ay sameeyeen ay waraaqahan ku jiraan iyo diinta islaamka sida ay ugu been abuuranayaan oo ay maaragtay qof dhan loo dilay oo bini aadan ah naftiisa geed yuhuud ama geedka liya cali garoobka oo ku yaala degmada xarar dheere ayaa qof dhan oo bini aadanka ah nafta looga jira waraaqday ku xukumeen taas waxay ku dileen waxaan hadda ku sugannahay degmadii meeshii geedkii la soo dhigay wixii oo dhan meesha yaaliin cadaynteedii waa taalla waa nimankaas geeduha iyo bini aadanka ay geeduhu la qiimo badan yihiin lana yaabi mayno hadda ka hor taariikhdooda markii dib loogu noqdo xilligii Sayid Cali ayay waxay yeeleen intay duuleen markay dilaaceen firqadan khawaarijtu oo Sayid Cali ay ka dilaaceen oo Sayid Cali la diriray ay maalmaha kamid waxay dileen nin saxaabiya iyo haweentiisii bay dileen way bireeyeen labadoodii madax ayay juwaan ku soo riteen ayagoo sita oo garabka ku wata ayay waxa u yimaadeen nin aan islaam ahayn oo doofaar dhaqda bay u yimaadeen gamuunay wateen baa mid wuxuu yiri waxaan ku baraweynahay doofaarkii buu gamuun ku dhuftay markuu ku dhuftay dhamaantood way wada ooyeen dhamaantood oohin bay la dhaceen waa wada ooyeen maxaa ka ooyeysin baa leeyahay waxa doofaarkaas uu dhaawacay ninka askariga ah nala socdaan la xanuunsanay baa halka kan oo degmada ah ayaan ku aragnay cadeymaha muujinaya falalka argagixisadu ay kula kaceen muwaadiniin Soomaaliyeed ee geedka kan iska gooyay hadii uu gurigooda ama sabadka qoyska uu ka baxay waxa saas kala aragnay warqadihii ku xukumeen halkan waxa yaala geed qof uu iska jaray hayeeshe argagixisadu ay ku xukumeen dil toogasho geedkan saa u jeedin cali garoobka anfacaad saa u sibuuran uma leh dadka iyo dunyada marka ama harsiga la joogo ama daaqa la joogo argagixisadu ay ka duulayeen ku dhumaaleystaan geedkan qof ayaa gooyay halkan ayaa la soo dhig argagixisaduna waxay keeneen goobta ay sidoo kale maxkamad beenaadka u ahayd oo xarunta degmada ahayd oo dadka ay ku fuli jireen sharciyada falalka ka baxsan shariicada islaamka geed buu qofkan gooyay waxay ku xukumeen dil toogasho iyadoo dadku ay jarayaan geedo ka qaalisan oo anfacaad u leh dadka iyo dunyada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya daraawiishta Galmudug dadka deegaanka ayaa ka dulqaaday culaabtii iyo mugdigii argagixisadu ay ku hayeen bulshada Soomaaliyeed ee ku noolaa degmada xarar dheere iyo deegaanada hoos yimaada waxaana iminka dadka Soomaaliyeed ee ku noolaa degmada xarar dheere ay ku naaloonayaan naacawda dawladnimada baasha cala xashi warbaahinta qaranka xarar dheere